gabadha xilligan nool waxaa lagu yaqaanaa alcifatu dhowrsanaan akhlaaqdii waaye marka waa maqashaan gabdhii akhlaaqdii way ka tageen gabdhii maaragtay xijaabkii waa la dhigtay meelahay la soo istaagaan banaamij cawradoodii soo dhigaan sababta ma taqaan weelka gabdhahaasi akhlaaqdan baqiimo ugu fadhinin boos uma fadhiyaan gabayada Soomaaliga marka mahmaahada Soomaaliga marka dhiga jira maxaa dhiga jira xishoodka waa wanaagsan yahay gabdhuhu ku sii wanaagsan yahay dhowrsanaantu way wanaagsan tahay gabdhahay ku sii wanaagsan tahay hadda maxaa keenooy marka in gabadhii ayadii akhlaaqdii ay ka tagto oo banaamaha is soo dhigto oo xishoodkii la waayo waxa keenay waxa waay gabadhaan waxay u maleysaa xishoodkaas ay ka tagtay iyo akhlaaqdaas ay ka tagtay inay magac ku helayso in lagu ixtiraamayo in dadka ay ku jeclaanayaan in dadka ay raali uga noqonayaan ay u maleysaa saadartay waxay raadinaysaa waxa waay dadka intibaahooda attentionka dadka soo jiidanay wallahi waa gabar fiican hal ugu dhaho sawirey soo dhigay like ii soo saaray kuleeda ida soo dhigtay ii soo saar hadana hadhow marka heblaayo intaas oo like ay leedahay intaas oo follow ay leedahay intaas oo subscribe ay leedahay halaha seerta markii gabadhii ku soo gashay caadi ku soo gashay wixii way ku talaxtagay laakiin waa aaminsanahay gabdhaha sidaas way yaryihiin marka loo fiiriyo gabdhaha dhowrsoon ee xijaabka wata ee wax baranayo ee magaalada jooga ciladu intay ka jirtaa ma taqaan ayaga banaanka ay soo dhigeen kuwii cagsigoodii ahaan way dhuntaan meeshii dhama marka ayaga qabsaday hadhow marka waxa leeyahay magaaladii gabdha ma joogaan magaalada 2 milyan iyo bar qofooda ku nool hadii la yiraahdo inta halaysan oo banaanka timi labadii barka kala bar waxa haween waaya la yiri 1 milyan haween mesela hadii magaalada ku nool yihiin probability inta halaysan meeqay ka naqan karaan ay kula tahay boqolkiiba 10 ma dhama boqolkiiba 5 ma dhama inta dhowrsoon ee diinta haysata ee xishoodka badan laakiin loo ma jeedo ayaga ma muuqdaan shakhsiyadii baa daciif noqotay a'uudu billahi inna lillahi subhanallah bal tan fiir ee kulada meesha uga dhaqaaqay laakiin waxa laga rabay adiga inaad tiraahdo gabdhii maaragtay inay isku yimaadaan intii wax baratay gabdhii naadiyaal loo sameeyo facaaliyaad sameystaan nashaadaad sameystaan waxyaabo maskaxdoodii kor loogu qaadayo gabarnimadoodii kor u qaadayaan aqoontoodii kor u qaadayso gabdhii inay la imaadaan oo gabdhii kale ay saameyn ku yeeshaan gabadhii qof mu'assir ah ee noqoto role model la fiirsado inay heshaal rabay Dr. Cabdikariim Bakaar wuxuu dhahay kitaab uu qoray wuxuu yiri dawladaha faqiirka ma ahan buu yiri kuwa lacagta haysan maaha laakiin dawladaha faqiirka ama dadka faqiirka waa dadka markay dhinacyadooda fiiriyaan ka weynaayo cid ay ku daydaan dhinacyadooda dhana fiirisi waa wax wada halaysan gabdhii lagu dayan lahaa ee aqoonta iyo maaragtay waxa uu saaxiibka ahaana meeshii way isku xareeyeen saadartay marka gabadha xilligan la waxa laga rabaa inay akhlaaq leedahay gabdhii maaragtay waa ka weyn tahay insaanata ilaahay nafsadu ku siiyay waa ka weyn tahay inaad decoration ma taqaan meelaha lagu qurxiyo xafladaha maaragtay markii la leeyahay safafka hore waxa la keenay gabdho la soo qurxiyay guriyana marka ku qurxansaneen waxida meelaha ku dhijinaysid daaba bedelaysid micna ma kuugu fadhiya aan ka ahayn qurux gabdhahaasna waxay noqdeen decoration meelaha lagu qurxsadaa markaas meelka sawirradii baa la faafin oo xafladii way qurxiyaan oo xafladda maanta hadii qurux laga rabo gabdhii baa la wacay is soo qurxiya meelaha kan waxay ka noqdeen xayeysiis wax lay xayeysiinayaan wax lay moodalinayaan wax lay maanta dhan meelaha xarumaha daarabta xayeysiis loo wacda away gabadhii dhakhtarada ahayd miisaanka lahayd gabadhii diinta taqaanay gabdhuhu u iimaanayeen gabadhii maaragtay haysay meeshii gabdhaha wax loogu qabanay gabadhii haysay aaway male saadarteeda marka gabdhii waxa ku soo koobmay inay noqdaan wax meelaha lagu qurxiyo decoration ilmaha maaragtay TikTok iyo balaayada isticmaalo markay wax soo duubayaan ayaga wax soo duubayaan gabdhay wataan asaga yaa wax duubanayo page kan asaa iska leh laakiin gabar wata gabadhiyo marka wuxuu ama hees ha duuba ama wax kala duubo ayadiiba kor saaraya
bas waxay noqotay marka mujarrad waxa u malaysaa inaan u noqono casru jaahiligi mujarrad in wax lagu qurxiyo in xayeysiima u fiirsan internetka waa ku jirtaan wax kasto markii la xayeysiinayo gabara la keenaya limaada nin wax ma xayeysiin karo wiil wax ma xayeysiin karo ila ku qurxan aalule style fiican ay leedahay aalule style kala ki waxa kala weyn maskax fiican ay leedahay meel dhaay maarag wallahi gabadha maskax fiican ay leedahay inaan ka faa'iideysano iyada la soo hormariyo maaragtay arki maysid gabadhan ma sha Allah cilmi ay leedahay faqihad waaye gabdhaha maanta su'aalaha weydiiyaan ayaga loo balamiyo ma leh gabadhan ma sha Allah ganacsato waayo ganacsigeediba heer sare ka gaarto diintii dacwadii way ku kaalmeysay wallahi sida ay nolosha ku soo gaartay kifaaxeedii aan wareysano ma leh bas waxa lagu leeyahay meesha way ku qurxan yihiin saadartay marka gabdha waxaan rabnaa inaan idin sheego mowduuca ugu weyn oo midna waxa waaye noloshii gabdhaha nabiga ay noolaayeen decoration ma ahayn meelaana lagu ma qurxsanaynin bal arimaha masiiriga bay ka hadlaayeen Umar bin Khattab markuu meel inta yimid yiri meherka inta ayaa laga badinin islaam baa gacanta taagad markaas ruuxuusan ilaahay noo xadidin ma adiga noo xadidaysa masaajidka dhexdiisa gacanta ka taagad oo rag iyo dumar la wada joogo sababta waxa way shakhsiyad adag bay leedahay diinteedana way ku dhagantahay way aaminsan tahay diinteedu inay darajada gaarsiisay saadarteed lama xishoonin marka Allah amiirul muuminiin oo dadkii ka dhaxalnooy ma ka hadlay miis oran way istaagtay sidii sax u arkaysa bay sheegtay marka shakhsiyadaas adaga aan halka rabaa dacfiga aan iska dhaafno waxaan ku soo koobayaa akhlaaqda xun iyo cilmiga ku dadaalaynin iyo noloshoon ka qarsoonahay iyo anagoo isku kalsooneen waxa keenay gabadha waxa laga aaminsan waxyaabo qaldan wixii sidii loogu celcelinay gabadhii run ay u maleysay marka meel kastana waa ka sheegaa islaan Mareykanka joogtay oo Mareykanka madowga ah markii la adoonsan jiray Mareykanka madowga markii la adoonsan jiray islaanta waxay u doodi jirtay xuquuqda madowga Mareykanka u doodi jirtay waxay dhahday marka waxay sameeysaa dadka beeraha ila adoonsanaay u tagtaa way soo xadaa gobolkay joogan gobol ahayn keenay waxay keenay marka waxay leedahay xoraa tahay cid ku adoonsanaysa ha u noqon had isma arkaysaan waxa la yiri waxa ugu adag ku soo wajahay maxaa waay waxay tir waxa ugu adag oo soo wajahay waxa waay bay tiri dadkii madowga ahaa ee dhahay war adoomo ma tihiin waxay leeyihiin may adoomaan nahay waaba ka dhaadhici waayay tiri in adoomo yihiin sidiiba haddana haysato gabdhihii markii la yiraahdo war ilaahay darajadaas uu ku geeyay oo awooddaas ilaahay ku siiyay oo saas iyo taasiirkaasi saameyntaas leedahay ma aaminsano markaas hadda waxa lagu leeyahay ma aragta haweenkan ma aragta waa iska caruur caga waaweyn waa iska ballaarteen maana maskax ma jirto ma aragta haweenka markay sheekaysanaa islaanta warkeeda meel ka soo qaad ma leh masarkeeda la hadlaa lagu leeyahay masarkeeda la hadlaaye jinni baa u waramee lagu leeyahay markii waxbarasho la gaaro jaamacad gabdheed iyo iskool gabdheed ahaa jika u dambaysa intee gaare meel ma gaaraysay salaad hadii la gaaro waxa lagu leeyahay salaad islaameed leemaano maadan salaadoodii billahi calayk magaaladaas weyn oo aad joogtid wallahi waxaan ku arkaa masaajid qayb haween loo dhisay oo haddana salaadii casirka ama maqribkii markay u qabato xiran way xiran yihiin markaas maalin waxa arkay gabdho meel ay ku tukada inta way meel gees inta tagay marooyinkoodii dhigtay ama ciidaha u gargaraacay eedo meel aan ku tukanana si masaajidkiina waa kan qayb dhan haween u leeyahay limaada laana salaadaas haweenka ay dukanayaan baa qiimo ku fadhinin meelaha qaar markaas marka gabadhii ay u dhibtoonaysa in ciidaha u gargaraacdo ama meel aan ku tukada si yadhaado hadda waa dad masaajid haya dad caadi ma aha marka waxa way waa fikir saa'id ah oo salaadeeda meel ma gaartay iyo casir 12 saac dukataa iyo naag waxa dhistay ayada dumise iyo waxbarashada meel ma gaartay waxa soo dhintana la ka badbaadiyay gabadhii waxay u maleysay inay waxba tari karin marka way iska nooshahay saadarteeda nafsiyan ay u xanuunsan yihiin shakhsiyadoodii baa yar tii halawdana waxay isleedahay awal basaasa lagu dhahay hoo banaar galaasay team boy halawgaada banaanka la imo banaanka soo dhigo tii kalena way iscelinaa waxa la maxoogaa yar ma aragtay markaas meel kasta u badan yihiin isbitaalada tagto u badan yihiin meel cilaaj hada tagto haween baa dhooban
meel wax laga sheegay hadaa aragta haween baad dhooban meel wax lagu qurxinay hadaa aragta haweenkii baa qurxsanooya decoration waaye hadda waxa lagu leeyahay marka gabdho waxa qaban kara ma joogaan tiradeena ka bateen marka tiro badan oo tayo lahayn dib waxay dhibaato keenaysaa koo marka darajada diinteena gaarsiisay ogaada akhlaaqdaas iyo edeb daradaas iyo asluub xuntaas laga tagayna kuwa ka tagay waxa soo celin kartay akhlaaqdeeda haysatay waay haddii adiga aadan ma aragtay gabadha aad isku day kar inaad soo celiso oo risaaladii aad gaarsiiso baddi way sii gale ilaa heer wixii banaanka la soo istaagto dadka qaar hadda ma bixishoonayaan markaas la wallahi xadiiskii nabiga ku rumoobay idaa lam tastahi fasna' ma shi'ta hadaada xishoonaynin waxa rabto samee markaas waxba wax ka daran ummadii la soo istaagayaan marka waxa soo dhan ma aragtay dacfiga iyo shakhsiyad la'aanta anaga haysto weeyo tilmaamahaas gabadha muslimada loogu talagalay marka yeelato adduunkiina miisaan baa ku yeelanaysa aakhirina miisaana ku yeelanay ummadana way hagaagaysaa guriyo fiicana noo soo baxay waraa kulli rajulin cadiim imra'atun cadiima nin kasto wanaagsan gabar wanaagsan ka dambaysa zawj ha ahaato aabe ha ahaato ma aragta ilmo yar ha ahaato walaal ha ahaado abti ha ahaado adeer ha ahaado gabadhii meeqa ku hareeraysan ayadii hadii wanaagsanaato inta soo dhaway saameynaysa fariinteedu marka waxa weeye gabdhaha aan ugu talagalay oo maanta fursadan aan u helay gabdhayo diintiina ku dhaganaada laakiin diinta sidii saxda ahayd iyo gabdhii booska istaajisay raadiya oo barta kadibna gabdhii saxaabiyaadka ee naga horeeyay aan ku daysano yaanan ku daysanin kuwa meelaha is soo dhigdhigay hebel dharkay soo xiratay ii raadiya lagu leeyahay dharka heestan ku soo jish ii raadi masha Allah dharkii heblaayisi laana ayada role model ka dhigatay laakiin gabadha wallahi Aisha bint Abu Bakr taqaana mawaaqifteedii taqaano Aisha siiradeedii taqaano uma baahna kuwan kale Aisha role model waa hado marka Aisha say noqotay ma noqon karno laakiin waa iska raadinayna waa ka agdhawaanayna marka gabdhaha waxaan aad iyo aad ugu baraarujinayaa shakhsiyadiina marka koowaad dhisa waliba intiina wax barata waxbarashadiina ka sal gaara oo ka mira gaara wax kasto la sheego ma aragtay waa sax oranina wixii ila saxnimadooda iyo xaqiiqadooda ay ka soo raadisaan iska hubiya iska baara shakhsiyadiina ku kalsoonaada intiina wax baratayna dadka kale la soo aada ummadii jahli umiya dishay ummadii wax bara kalimadeedu marka halkaas ay ku kooban tahay gabdha la hadal markii la yiraahdo energy awal aan qabina ilaahay amarkii yeelanahay laana gabdhaha ma aragtay aniga gabadh baahay waa kamid ahay wallahi dhibaatooyinka iyo ma aragtay challengeska iyo taxadiyaadka gabdhaha ay la kulmayaan culaysyada haystana waa ku dhex jiraa saadarte marka gabadhaas hadii wanaagsanaatay waxa aaminsanaa ummaduna way wanaagsanaanaysaa marka ii cudur daaro wixii isku qaldo ama isdaba mariyay hadaan soo daahayna meel dheer baan ka imid aad u dheer marka ii cudur daaro insha Allah laakiin ballanta isku ognahay waxa waay niyada idin kala hadlooya wallahi waa ballanta aan nafsadeeda aan kula balamo aan idinka camal leenahay saadarte waxa naftaada la jeceshaa walaalka la jeclaa waa la yiri waxa nafsadeeda aan kula balamo waxa weey kun saahibatu risala kun saahibatu qadiyya kun saahibatu hadaf marka hadaf leedahay risaalada xambaarsan tahay qadiyad aa leedahay meel aa u jeedid waxa ka soo sokeeyay arkmaysid taas marka anigana nafsadeeda kula dardaarma idinkan idin la jeclahay waxaan rajaynayaa ummadda si hadda joogto in sanado kadib aan iska bedelno oo gabdha ay noo soo baxaan dhinac kasta nolosha noo buuxiya biidinillaahi kariim aad iyo aad u mahadsantihiin gurisama aad iyo aad ugu mahadcelin macallimiinta yimid iyo gabdhaha soo xaadir idinka haday imaan lahayn darbiga ma la hadli lahaa marka imaatinkiina qiimo ay ugu fadhidaa micno ay ugu fadhidaa waxaan rajaynayaa inaad meesha wax uun kala noqoteen biidinillah salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh